بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ومركلة هي حلقة كمدة حلقاتكي أما دروستي أنو بقى بحني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وإنه كأجيني تاريخه يسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درسي إن شاء الله تعالى waxaan qaadan doonaa saxaabiyu jaliil Sa'd ibn Abi Waqqas taariikhdiisii iyo siiradiisii oo kooban waqtiga oo yar laga wada gali karo laakiin insha Allah ta'ala inaan wax ka ogaano waxa inoo qaada dhigaya fadiilatu Sheikh Anas xafidahullah falyatafadal sheekh mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نكان ما أنت كهذا الله إنه وسعد ابن أبي وقاص ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة وصحابي كم ذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل رجي رموزتها الصحابة كم ذا وحكم ذا رجي سابقين تها وقتها رسول إسلامي ورجي وقتها رسول هجرودي هذانا واددك جنة اللوغة مرخاتك عي أو حكم ذي عشرة المبشرين بالجنة طبعا كنين جنة اللوغة بشاري سعد وحوك لو كم ذي لحدين النبي عليه الصلاة والسلام ودنتي ومركو دمانيي ودنتي إساقو كرادية سيدا عمر مالكي ودنتي ودمان ربي ودردار مي لحدين يقول شورا انتي نقضان لحدا ها اسكالا سارساران وقف مسلمين تا هلو مقعابو سعد بن أبي وقاص وحوها صحابي كمين صحابيين تا ولمن الرهير مكاه ونن قريشي أيوها وقت قصو إسلامي وحي شيغان أصحاب السياركا إساقا ولمن اللغا وريا إنا يدى الشيء هويو isaga jeclayd isaguna uu ahaa nin baari ah oo hooyadii hadalkeeda inuu khilaafaan jeclayn markay maqashay inuu islaamay maalinkii dambe waxay tiri Sacadow diintii aabbaha iyo intad ka tagtay miyaad raacday dadkan sabai waxay u yaqaaneen dadkan leexday diin kale miyaad qaadatay leexashay dhihi jireen oo qofka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam raaca sabai bay markaa ku cayn jireen maan leexatay tiri maanta oo diintii maan nacday tolka ay ku sugnaayeen iyo awowyaasha cuni mahayo cabina mahayo waxay tiri waan cuni mahayo cabi mahayo markaasaa waxaa lagugu ceebayn doonaa qaatila ummi macnaheeda waan dhiman wey cuntadii iyo cabitaankan ka tegi kaasaan haraad iyo gaajo u dhimanayaa markaasaa lagugu ceebayn doonaa oo waa kii hooyadii dilay la dhihi jir yaa la dhahayaa markaasa Sacad wuxuu yiri way ka tagtay cuntadii iyo cabitaankii markaasa il go'day maalintii dambe uu imaaday kaasuu wuxuu yiri hooyay law kana laki mi'ata nafsa law kana laki mi'atu nafsa haddii aad 100 naf aad leedahay fa kharajat nafsa markaas ay naf u baxdo oo 100kii kolba mid ay dhimanayso diintan waa diinan qaatay kama soo noqonayo haddii aad rabto inaad cuntayso oo cabto aday ku taala hadaad rabto inaad ka tagina adigay ku taala aayada soo degta la yiraahdaa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa walidka ina khaladka lagu ateecaynin haduu khalad ku amro ina lagu ateecaynin sacday ku soo degta la yiraahdaa sa'ad radiyallahu anhu wardah fadaa'il badan ayuu leeyahay fadaa'ishiisa waxa kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu janno ugu bishaareeyay ka sokow inuu ugu duceeyay inuu rabbi subhanahu wa ta'ala mustajabu da'wa ka dhigo allahumma istajib li sa'din idha da'aak rabbi yow sa'ad ajib haduu ku bariyo nabiga kaleey salaatu wasalaam abtibu ahaa oo nabiga raabtiga ayuu ka dhashay Sa'ad nabigu markuu asxaabta la kaftamayo abtigay wuxuu yiri wakaase
abtigiina tuso abtigayoo kale ma leedihiin buu dhihi jiray. sacad fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah inuu nin qaa'id ah oo dagaaladii la galay, nin geesi oo calool adag, haddana shiishkuu ku caanbaxay oo leebka uu gano meeshu uu ku wada waa ku dhici jiray. waxaa la wariyaa maalmaha ka mid a dagaalada iyadoo lagu jiro nin baalkan tursiga la dhaha watay gaashaanka oo waxoogaa saxaabada isaga dhigahayey inuu sacad inuu ku tuuray oo marka uu halkaa wejigaa kala helay. sacad marka leebka uu tuuro waa la heli jiro nin shiish badan ayuu ahaa. sacad radiyallahu canhu ardaah waxaa laga wariyaa isaga laftiisa inuu yidhi walaa tadrudu aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi waxay ku soo degtay 6 nin oo ani iyo cabdullaahi bni mascuud aan ka mid ahayn. sacd ibni abi waqaas radiyallahu canhu ardaah isaga wuxuu leeyahay fadaa'il khaas ah oo macaarigtii dhacday wakhtigii cumar radiyallahu canhu ardaah ay muslimiintu guusha badan ka gaadheen, sidii macrakatu qaadisiya, dagaalkii qaadisiya caamka ahaa, iyo fatxulmadaa'in iyo xataa julowlaa, intaba isagaa hoggaamiyey. nasrigii badnaa ee muslimiintu gaadheen sacad ayaa oday ka ahaa. waxay asxaabu siyarku sheegaan sacad wakhtiyada ka mid ah, khaasa fatxu maka, inuu xanuunsadoo maka ku xanuunsaday. nabigana calayhi salaatu wasalaam uu soo booqday. nabigaa u imaaday sacadoo xanuunsanaya, kaasuu rasuulka ilaahay waad ii jeedaa waan xanuunsan, haddii ay inay taydii noqonna yacni xanuunkay hayana xanuun adag wey, inay taydii noqotona waan isaga baqi, waxaan rabaa xoolahayga inaan iyagoo dhan dardaarmo, laanna wuxuu yidhi hal gabar baa idhaxlays, gabadh besaan ka tegaya. markaasuu yidhi maya saa ha samaynin. sacad wuxuu yidhi maya xoolahayga haafkood marka aan dardaarmo barhkood. nabigu wuxuu yidhi maya sacadow saa ha samaynin, thuluth baan dardaarmi oo xoolaha 3 markaan u qaybiyo hal meel aan dardaarmi. nabigu wuxuu yidhi thuluthku waa badan yahay, laakiin waxaan kuu sheegi inaad ka tagto gabadhaada iyadoo caydha yaa waxaa ka fiican inaad iyadoo xoolo haysata ka tagto. haddii aad ka tagto iyadoo caydha oo dadka gacmaha u hoorsanaysa waa qof baahan, marka isagoo qof wax haysta ah inaad ka tagto ayaa kaaga fiican. markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayow maka oon ka hijrooday inaan ku dhinto waa ay dhibaysaa. xogaa wuxuu yidhi taas culays bay igu haysaa. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lacallaka an tabqaa xataa yantafica bika aqwaamun wa yadurra bika aakharuun. inuu rabbi subxaanahu wa tacaala wakhti ku siiyo oo noolaato ayaa dhacda, dadna ay kugu dhibtoomaan, dadna aad anfacdo. waana dhacday oo yacni muddadii kadib buu noolaa in badan, welibana geeridiisu waa inoo iman doontaaye wakhtigaasaa la leeyahay ee fatxu maka 40 sano kadib ayuu noolaa. sacad radiyallahu canhu ardaah nabigu maalinka waa u duceeyey, wuxuu yidhi intuu yacni xabadka iga dharbaaxay uu gacanta saa iga saaray yuu ii duceeyey. markaasuu wuxuu dhihi jiray qabowgii faraha nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa xabadkayga ka helayay. sacad saas oy tahay isagoo waxaasoo fadiilo aan leh kama nabadgelin dad wakhtigii noola. magaaladan kuufa ayaa waxaa looga dhigay amiir. reer kuufana niman waxay ahaayeen yacni raggii soo maray badanaa waa isqaban jireen. sacad marka waa ka soo dacwoodeen oo cumar bay ku soo dacweeyeen. cumar wuxuu sameeyey amiirulmu'miniinka radiyallahu canhu ardaah, rag buu diray kormeerayaal ah oo yidhi bal soo fiiriya sacad iyo waxa kala haysta qolyahaas. kormeerayaashii waa tageen, waa soo wareegeen. masaajidkii u dambeeyey markay marayaan yuu nin la hadlay. waxay dhaheen bal warrama oo noo warrama sacad, amiirkiina ka warrama. nin baa istaagay wuxuu yidhi sacad haddaadna weydiiseen rabbina aad nugu dhaariseen dhowr arrin baan ku sheegi. laa yacdil fi lqadiya, gar hadday timaaddo cadaalad kama sameeyo oo dadka yacni ma kala garsooro si fiican. walaa yaqsimu bisawiya, qismi markay timaaddo iyo wax qaybinna si fiican waxba ooma qaybiyo. sariya hadday timaadana walaa yasiiru bisariya, waa nin fulay ah oo ma raaco dagaalada loo baxayo. sacad markii loo sheegay yuu habaar isla taagay. wuxuu yidhi ilaahayow hadduu ninkaasi been sheegayo fa acmi basarah waatil cumrah wacarridhu lilfitan wa acmi basarah. ilaahayow araggiisa tir
cimrigiisana dheere fitantana uu u bambaxo faqrina ilaah uu soo dedeji raawigii saxaabiga wuxuu yidhi intiiba isagay ku dhacday oo duqoobo waa yeelay oo yacni waddooyinka kuufa dhex socda oo leh baan arkay buu yidhi waa nin ay ku dhacday oo habaaran oo habaarkii sacad uu ku dhacay waana kaan ka soo sheekaynay oo rabbi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u bariyey sacad inuu ilaahay ka dhigo mustajaabu dacwa sacad markii loo sheegay inay reer kuufa ka soo dacwoodeen uu cumar u imaaday yidhi cumarow maxaa la iga kaa sheegay wuxuu yidhi niyow sacadow qoliyuu xataa waxyaabahay sheegayaan waxaa ka mid ah inaadan xataa salaadda aqoonin salaadda xataa way iga soo dacwoodeen markaasuu warramay salaadda qaabku uu tujiyuu sheegay sunnada nabiga inuu yacni waafaqayo markaasuu wuxuu yidhi qofkii koobaad oo leeb dar alla subxaanahu wa tacaala u gana anigu uu ahaa qof caraba koobaad oo leeb dar alla u gana fii sabiilillahi waddada alleh yaan ahaa waxaan is arkay buu yidhi anigoo qofka toddobaad oo dadka soo islaamay kaasay wuxuu yidhi reer beni asindii hadda imaadeen iyo anigu wuxuu yidhi wax iga sheegayaan marka sacad radia allahu canhu ardaah sabaqiyada ayuu lahaa sacad hawsha kale uu ku caanbaxay waktigii fitanta ay timid waktigii fitantii cali bin abi taalib amiiru lmu'miniinkii iyo mucaawiya radia allahu canhu ardaah ay isqabteen fitantii markay timaaday dhan buu oga istaagay ma ku darmanin bal waa ka guuray magaalada madiino meel caqiiq la yidhaahduu degey halkaasuu deganaa kuna dhintay meeshaasuu wuxuu ka dhistay yuu guri ka dhistay maalin maalmaha ka mid ah waxay sheegaan asxaabu siyarka isaga oo ari intuu gatay meeshaa jooga yaa wiilkiisa u imaaday oo la dhihi jiray caamir kaasuu wuxuu yidhi aabbo dadku waxay isku haystaan xil baa la isku haystaa oo madiina la joogaa waa la looltamayaa adiguna ari baad meesha ku raacaysaa see buu waxu jira markaasuu wuxuu yidhi xamadka intuu ka dharbaaxay yaa wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla yuxibu alcabda altaqiya annaqiya alkhafiy nabi maxamed baan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee isaga ka baqa haniga ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala yacni waxa uu siiyey ku kaaftoon haddana khafiga ah rabbi subxaanahu wa tacaala kaas ayuu jecel yahay sacad marka bannaankuu ka istaagay fitantii yacni muunan gelin cali radia allahu canhu ardaah aataarta laga wariya waxaa ka mida inuu yidhi lilaahi manzilun nasalahu sacdun ibnu maalik yacni meesha uu sacd ibnu maalik uu ka istaagay oo ugu jeedo sacd ibnu abi waqaas halkaas ayaa boos la fadhiista ah oo fitanta laga istaaga ah sacad radia allahu canhu ardaah fitantii markay dhacday meeshaas ayuu degey meeshaas ayuuna ku dhintay waktigii wuxuuna dhintay mucaawiya oo 55 iyo 56 labada waa la yidhi waktiyadaas ayuu dhintay cimri dheer rabbi subxaanahu wa tacaala alle waa siiyey oo wuxuu ku dhintay 82 sano sacad nin saas ayuu ahaa maalinkuu dhimanaya waxaan ku soo gabagabaynayaa yaa wiil wiilashiisa ka mid ah madaxiisa intuu fadhiistay yuu ooyey kaasuu aabba maxaad u ooy kaasuu aabba waxaan u oynayaa yacni hawsha ku haysata ayaan u jeedaa aabbahayoo dhimanaya markaasuu aabba ha oynin anugu waan hubaa jannaan gelayaa janno ayaan gelayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ima cadaabahayo ahlu jannaha ayaan ka mid ahay sacad ninkaas ayuu ahaa sheekh marka insha Allah maalinkuu dhintay soo qadaris haye soo inta gabagabada waxaa maalinkuu dhintay sacad ee qabriga la keenay isagoo la wado yaa waxaa oyday umu salama radia allahu canha wa ardaaha markaasay waxay tidhi ninkani yacni waa baqiyatu asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam baqiyadii ka hadhay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waya sacdu nabi waqaas sacad sheekhana ninkaas ayuu ahaa sheekh maasha allah aad baad noogu faa'iidaysay adoo soo koobay siiradii ama taariikhda dheerayd ee uu lahaa saxaabiga jaliilkaahi marka adoo soo ururinaya waqtiga naga dhammaan rabaaye guud ahaan dadka muslimiinta ah saxaabigaas wax aan ka baranayno oo aan ka faa'iideyno noogu soo urur insha Allah waqtigii 2 daqiiqo meelaha saharay
إن شاء الله تعالى ضوء ماركتاي صورنا شيخنا سعد taariikhdiisu dhowr dhanba in laga istaago waa mudanta صح waqtiga uu soo islaamay isagii hooyadii waxa kala qabsaday صح baarinimadkiisii waa mudanta marka waa arrinkaasi waxa weeyaan qof kastoo aad jeceshay hadduu ilaahay xaqiisa ka hor istaago tuu ka hor istaago inaad ka baydo jacaylkiisu miyuusan noqonin inuu xaqa ka hor istaago ka waa darsan ka qaadanayno darsiga koowaad laga qaadanayo si hooyada hawsha dhex martay aad iyo aad midda labaad sacad isagoo fadliga loo qiray oo 10 mubashiriin bil janna kamid ahaa ragii saabiqiinta kamid ahaa sida uu ahaa muunan ka badbaadin wax ka sheeg marka wixii ay ka sheegeen saa sheegtay badee ninkii calaamad waa ka muuqatay inaysan wax jirin calaamadii waa ka muuqatay laakiin adduunka haddii la joogo qofku cadow waa yeelanaya intaas wey marka waa meesha laga wada raadi noqonaynin taariikhda lafteeda waa laga qaado sax waa noqdo labaad nuqdada saddexaad waa waqtiga dagaalku markuu dhacay fitantii saxaabadii muslimiinta ka dhex dhacday sacad inuu dhan u istaagay iyana waa darsi weliba neerada laga wariyo waxaa ka mid inuu yidhi haddaan garana inaan garto qofka aan dilaya inuu gaal yahay uma seefta qaadan laakiin qof laba qof oo isla shahaadanaysa dagaal meel lagu galahayo dhiig muslim baa la daadinaya marka iyana waa arrinkan marka hadda talo ay dadka ku kacay maanta ka waran markii qoriga la booday ka waran dadka muxuu yahay darsi buu yahay dadka darsi iyadan uu yahay saddex darsi ayaan ku soo gabagabaynaa insha Allah ta'ala Sheikh Anas xafidahullah runtii aad iyo aad buu inagu soo ururiyay taariikhda saxaabiga jaliilka duruusan ka barana wuu sheegay geesinimadu waa kamid oo qaa'id buu ahaa isaga inoo sheegay dhowr macrako oo muslimiintu ay ku gaareen guul aad iyo aad u weyn inuu markaa Sacad uu hogaaminay radiyallahu ta'ala anhu marka waxaan leenahay dad kale naga rabo inaan ku dayano oo dariiqooda aynu qaadano ilaa saynu macna waxa weeye ummad waliba cid ay taariikhdooda akhrisato oo ay ku dayato oo ay daba gashay leedahay inaga cid la rabo haddaan muslimiin nahay inaan raadkoodii raacno aan ku dayano waa dadka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam soo tarbiyay muslimiinta iyo diinta aynu maanta aynu haysanana iyagu markaa naftooda u soo horay aad iyo aad baa u madsanta sheekh dadka inta ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh